الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أنت عن شيكدو أسئلتك أنا ما هنقو مانشستر أوبن فورم كان سكايسيان إن هذا اللي وذاعه أفكار هيجا أنا من اللي دقيسته ناس صح ولا غلط. إن شاء الله موضوع أنا وموضوع ير وأنكسر قاضي بوجان فرها جناحسيا. مركا أنت أنا الموضوع ستوس ولا قريب. الوحام حيدك الشيء جيا. waxay ku kalifay buugaan aan qoro waxa kale waxa ka taabanaya wadadii aan maray markaan qorayay haday macquul tahay waxaan isku dayayaa meelo kamid ah luqad kamid ah inaan kor istaago inta aanan u gudbin mowduuc ciwaankiisu yahay sida loo helo afkar ganacsi 2005 aakhirkeedii ayaa home office-ku waxay daabaceen publication la xiriiray faqriga qowmiyadaha ku nool UK Soomaalidu waxay noqotay qowmiyad ugu faqrisan 32 qowmiyadood baa la baaray waxay noqotay qowmiyad ugu faqrisan dadka ku nool UK mastarada ay wax ku cabirayeen waxa kamid ah shaqo la'aanta iyo dadka shaqeeya noocyada shaqada ka shaqeynaya ku soo gala waxa kamid ah home ownership-ka qofku inuu guri leeyahay waxa kamid ah post code-ka meelaha degan yihiin waxaas oo kala afar badan marka waxaynu noqonay dadka ugu faqrisan فقرنا وكتشنا وحيله الرسول صلى الله عليه وسلم وله كمان حين جاء مركا هيد قبل كان دقنا قابل سن development تيجا MDL استملال development agency أيام الشقيني و business development manager وهذا مركا وحين نقطين وحنا يجوا يديه ولي بقى حقول ترى مالنتي اللونج جرين research كا داب university research كسميسي داب university بهوم فيس كله جرينيه dadka qayb galay baan ahaa marka maadaama Soomaalida si gooniya looga hadlay oo waliba si naxdin leh ayaa isla meeshii baa la igu weydiiyay inaan wax ka ilaahdo waxay ugu noqotay marka naxdin dhawaantii marka arrintii waa la seexan waayay waxay ugu aqoonsay murugo inaan dhaho ragga waxaa jiri jiray rag loo kala giduule bal maxaa ka samaysaa waxaan marka waqti siiyay horteed marbaan macalinka ahaa جامعة كتاب ليست قدموا في يونيفرسيتي إنه ما تدان لفتيجينا entrepreneurship and small business management كان يجري هرتاد وحنا business advisor أو هاي دام business link كذا مرة عبارة شقيقي مركو وحنا موضوع عن سفي عن أبسنا هاي وكبر إكسنا هاي مركو وحنا في ري ومديه من كسر ري أو ينجريسك وقاركود ظروف كأذب ظروف تنو كوني بينه ومشان كويمي سوى قبح فقري إيش ياكل كلا كمية يوغندا اللي بسوري ولستر وكله حتى يشين في يوغندا أبدا 30 باوند كبدا الله ما قال شركة نقاطها هذه ربع مليون هذا العكس توي هايستين ولا باري شوفان 30 باوند الله ما أنترا كويتو ممكن إنه قلت هاجس على لستر شاية سقال كمية ويشين بل ورقي قاركود بس كمان كافي ريسيت حبر الشمالة أدون قدك لكم الصون ولا يعني سؤال وحياة يونيك إلى هيك قد جي حنا هيدا اللي يراه هذا مركز في ريسيت أنا كفلم بيس كان أخبر شوي في عيها ولو تجريشين ده هروكي من الصومالية وحكوا لهم معجزة كنا هني والباصة حفر لغة كل دوم وكهذا عشان نحن وطننا كل دونا وكسون ولا هذا إيش كأن ما تشوفونه ولا ده وإيش كي globalization كهادون كأن قد فيلجنا language كي يوقف كأقوم تقول يا culture هذا كله و competitive advantage أو chance كسر القاعدة لكنه chance هذا هاي السنة أسباب تا كنتي إنه فقري ومهوسين إنه حين نقطة الحالة مركب ومديه هرام فيني إلا دراسات بدن بان لو سميو لهري كانوا ايشيان كاي كاريبيان كاي dad badan oo meelaha yimid Talyaaniga iyo Chinese ka Vietnamese ka dadkaas waxay sameeyeen first generation ku faqriga waxay kaga baxeen ganacsi second generation kina waxay noqdeen professionals dad wax bartay oo professionals innaga nasiib darro waxaan rajaynayaa Dr. Maxamuud inuu idin la wadaago maalintii hore waxbarashada iyo dhibaatooyinka ka haysata second generation كان أهدان إلى هاي عيمين والله بقى first generation وحنا مقطع جناحسي in a way extend ذا لي سجارة أنت دو كتب السؤالات هذا واحد بدنا نسكت ديني من السنة جناحسي مقضى إلا هذا صناعة كمس من UK أما يوروبر جناحسي مقضى جناحسي لا ترتمي كرا جناحسي ذا كتير يوروب جناحسي أنت هذا بدن كوع يمرنا الفائدة سبيكا ولي واجريها marka laga reebo xawaaladaha iyo waxyaalo la mid ah intooda badan fikirkoodu ka yimaado meelo kale ka yimaado marka arrintii ayaa waxay igu noqotay inaan marka wax ka baaro
journey safar baan bilaabay marka 2 sano ugu qaatay dhowr iyo 10 waddan baan soo maray waxaan ogaaday Soomaalidu falilah alxamdu waa dad mustaqbal leh dhibaatadan shaqo la'aanta iyo faqriga iyo nolol xumada maaha mid jirkeena ku jirta waa mid time ku keenay waayo waxaad arkaysaa qofka halkan cayrta qaata ama shaqada xamaalka ka shaqeeya markuu Afrika ama meelo kala tago boos buu noqonayaa oo soo fakaraya iyo mashaariicda maamulaya iyo horumarinaya markii aan baaritaanka sameynayay dad badan baan case studies interview ka soo qaaday ilaa 750 shaqadood baan questionnaire ka soo ururiyay ilaa 110 interview baan ka soo qaaday waxaa kamid ah ragga aan la kulmaynin hadda mashruuc carabi $200 milyan maamula imaaraadka waa Norway islaahay Norway taksiila marna dadka nadaafadda ka shaqeeya yaan la sheekaystay maxaa xaggan waxaa tahay nin nadiif miskiin oo halkaana waxaa tahay intaas qof baa ku shaqeynayso kabitaalka inta leeg baa maamulaysaa maxaa isbedelay ujeeda ma marka xagga joogtay baa maskaxdaadu ay maxaa yani marka waxaad arkaysaa waxa ina ku wada jira falilah alxamdu dadnimo iyo aqoon iyo mustaqbal fiican baa ina ku wada jira laakiin bay'adda iyo duruuftan ku noolnahay ayaa marna waxay tahay mid dhagax adag korkayna ka saaraysa midna marna inoo furaysa marka buugga qaabkaan u qoray waxa waa base waa research 750 shirkadood oo Soomaaliya gudaheeda iyo wadamada ku wareegsan Soomaaliya Yurub oo dhan ah iyo ilaa iyo USA Canada Australia baan data ka soo ururiyay kadibna 110 kamid ah ayaan interview ka soo qaaday intaan in la eg oo case studies ayaan hayay laakiin nasiib darro ganacsatadii baa ka cawday in magacooda la qoro maadaama qaar badan ka cawdeen magacooda in la sheego waxay noqotay inaan magaceeda ka tago tusaale ahaan markaan ka hadlayo sidee loo helaa fikrad ganacsi waxaa jira approachyo qaabab kala duwan oo loo helaa fikradaha ganacsiga qaab kastana shirkad Soomaaliya isticmaashay baan soo arkay marka shirkadii ayay ahayd markii example ahaan aan u soo qaato laakiin shirkadkiiba qaar badan ka cawdeen marka fikradii keentay buugga inaan qoro midaas ay ahayd qaabkii aan qaadayna wadadii aan marna wadadaas ay ahayd oo dheetada faraha badan aan soo ururiyay ay ahayd buuggu wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood qaybta hore waxay muuqaal ka bixinaysaa qof nooceeya ayaa abuuri kara ganacsi meel fog ah oo nin la yiraahdo entrepreneur ilaa hadda loo leeyahay Soomaali inkastoo ilaa 20 qof ay bixinta iga caawinayeen oo Soomaaliya gudaheeda iyo dawladda kala jooga laakiin entrepreneur waa loo waayay Soomaali waa nin hawlo badan waa kelmad xambaarsan macna fara badan kelmad kasta oo Soomaaliya la keenay waxay noqotay in yar oo kamid ah entrepreneurka inay toosh u dhan kaga ifinayso marka 90% baa mar walba qarsoon marka maadaama la wada waayay kelmad qofkii oo dhan sharaxaysa waxay noqotay in kelmadeeda Englishka ahayd la qaato qaybta labaad waxay ka hadlaysaa marka qofkii saxda ahaa markii la ogaado entrepreneurka waxay ka hadlaysaa marka waxay ka bilaabaysaa sida lagu helo fikrad ganacsi fikradii sida loogu bedelo marka ganacsi shirkadii loo sadad gareeyo waxay kaloo ka hadlaysaa asbaabaha keena koboca iyo shirkadaha qaar kobcaan fashilka ama dhimashada asbaabaha keenta qaybta saddexaad buuggan waxay ka hadlaysaa waxyaabo researchka identify gareeyay Soomaaliya ku liidato waxaa kamid ah suuqeynta waxaa kamid ah tartanka waxaa kamid ah fikirka istiraatiijiga inuu qofku leeyahay qorshe fog oo 20 sano iyo 15 sano leeyahay ayaa kamid ah waxaa kaloo kamid ah sida ay ku helaan ama ku raise gareeyaan lacagta financing oo baahan yihiin iyo say u maamulaan waxyaalaha ay ku liitaan buuggu hadda wuxuu muqarrar ka yahay 5 jaamacadood kamid ah jaamacadaha Soomaaliya ayuu muqarrar ka yahay marka case study-dii aan buugahan u daabici waayo waxay noqdeen in loo isticmaalo jaamacadahaas oo adiga waxaan u diyaariyaa hadda resource material oo 5 jaamacadood isticmaasha ay isticmaalaan adigu dhowr jaamacadood kalena way fiirfiirinayaan isticmaalaan ayaa laga yaabaa marka aan ku soo laabto mawduuceena